هذا وحنا dhageysan doonaa insha Allah ta'ala qaybta saxaabada ugu dambeysay oo noqon doonto insha Allah ta'ala qaybta khusaysa xilalka iyo mas'uuliyadka qaybta guud ee dadkaas siyaasiyiinta ee xukuumadda u haya ummadda iyo qaybaha goonida ah sidoo kale insha Allah ta'ala waxaan ka dhageysan doonaa fadiilada Dr. Adam Sheikh Ali. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين لبدا الشيخ خير الله سيو قيبه أمهم سنة ندودا أي نوقع ودقين إلهي نأجر كوضها بضيو نقن الله نقوى أنفع إن شاء الله تعالى قيب لا يرتها تابتي أو شعر أسامة ويرتها تابتي أيان إن شاء الله تعالى لما يشتريه وحان كب الله بيا قول الله تبارك وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ربنا وحاضينا سبحانه وتعالى الأمانة العظمى ولماذا مفسرين أنتوا ضبطا آيات وحي كفسر الأمانة العظمى وأمانة وينيد وأمانة دينت سماواتك إيه دولالك إيه بوريه أي الله بندقي كدبنا ويكا قعم تاكتين ابن آدم أي ربك أريتي وظلم بضنع وأنا جاهل من بضنع ساس ربنا عدينا سبحانه وتعالى ابن آدم كاسمرك أمانة سو ربك أريتي وهي أمانة العظمى أوتهي أمانة الدين waxay ku soo urureysaa xadiidkii oo sheekha sheegay Sheikh Ali Usame oo ahaa idaa wisida al-amru ila ghayri ahlihi fantadhir as-sa'a amaanaadka marka qaybtan igaga aadan laba cunsuran insha Allah ta'ala ayaan tilmaami doonaa cunsurka ama qodobka koobaad waa qodobka amaanaadka khaaska ah mas'uuliyadda iyo amaanada khaaska ah oo qofka insaanka ah naftiisa ama ha noqoto iyo cibaadadiisii iyo wixii Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu siiyay oo jirkiisa ku saabsan ama ha noqoto caruurtii iyo reerkii iyo ciddii uu mas'uulka ka ah ha noqoto taas waa qaybta koobaad oo amaanada khaaska ah qaybta labaad ama cunsurka labaad oo tagi doonana insha Allah ta'ala wuxuu noqon doonaa amaan ka hadli doona amaanada guud ahaaneed xilalka la hayo oo qofku mas'uulka ka yahay waxaan ku bilaabayaa qaybta koobaad amaanada iyo mas'uuliyadda khaaska ah waxaa lagu qeexi karaa inay tahay in laga run sheega shay kasta oo bini'aadanka ku xiriira ama ha noqoto cibaadadiisa ama ha noqoto ilaalinta uu ilaaliyo cirdigiisa sharaftiisa ama ha noqoto ximnihiisa ilaalinteeda amaba wax alla wixii ku tacalluq reerkiisa iyo wax alla wixii hoos jooga noocyo badan baa yeelanaysaa qayb dhowr ah sheekh ayaa tilmaamay Sheikh Ali Usame ayaa taabtay way ka mid tahay qofka amaanada cibaadada inuu dhowro amaanada soonka tusaale ahaan salaadii waxaa laga yaabaa qofka inuu si ugu xeeladaysto ayaa laga yaabaa adugu xeeys cafa kaga xeelaysan waayo oo qofkii la yiraahdo hebel jamaacadu ka maqan yahay oo ku qasbanaada inuu muxuu ahaa laakiin soonkii oo kale cid ku fahmi karto ama ku ogaan karto ma laha amaanada cibaadada meelaha ay aadka ugu muuqan kartana waxa kamid ah soonka oo kale salaada laftirkeeda qofka uu weysalaan imaado waa la mid ayadna nin waxaan garanayaa duka oo hadda nool oo geeri wali ku maqlin oo tukada markii shirarka iyo tolka iyo la soo yimaado laakiin weysalaan tukada markii aad weydiisan wuxuu ku leeyahay diin qawmi tolkay diintiisa weeyano markaan u reer magaaleyni wajaarihim marka sidoo kale amaanada qofka inuu xibnihiisa dhowro ilaaliyo ayadna waa amaana u taalo dhagihi iyo indhihi ee wixii Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku siiyay inaad ilaaliso nabigeena sallallahu alayhi wa sallam xadiis imaam Ahmad uu wariyay oo sahih wuxuu ku cadeeyay inuu yiri al-aynu tazni wal-qalbu yazni isha way zinaysataa zina run ah ila iimaanaysa qalbigana isna wuu zinaystaa laakiin waa zina
zinada weyneed ka yara hooseeyo markaasoo nabigeena wuxuu leeyahy sala allahu alay wasalam farjiga ayaa marka u rumeeyo oo hawshii ayaga ay bilaabeen iyo furihii ay rogeen isagii ayaa dhammaystiro amaba isagii ayaa beeniyo saasuu nabigeena cadayna sala allahu alayh wasalam nicmada ilaahay uuna siiy waa ammaano wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha inaan ka shukrina ayadna waa ammaano lain shakartum laaziidannakum cirdiga iyo qofka sharaftiisa inuu ilaashado u dhowro waa ammaano waaladiina hum lifuruujihim xaafiduun ila calaa aswaajihim ow maa malakat aymaanhum fainahum hayru maluumiin caruurta waa ammaano ilahay uuna siiy subxaanahu wa tacaala in la ilaaliyo in la dhowro in la tarbiyeeyo in loo naxariisto in wax la baro in la adbiyo intaba waa ammaano in la karaameeyo waa ammaano in waxyaabaha xaaraanta laga dhowro waa ammaano xilligan hadda aan joogna caruurtii waxaa lagu sii deeyey technolojigan iyo muxuu ahaa caalamkan electroniga wada noqday ayaa wax badan guryihii soo geliyey tvgii filimaanta iyo waxyaabaha laga daawanayey wax ka badan oo tafaaculi qofkii inuu la falgala uu samaynaa canugii isagoo 3 jir amaba 2 jir iyo bar amaba 4 jir ah ayaa yimid taababkii iyo teleefoonadan casriga iyo waxyaabahan iyo aflaamtan kartoonta iyo waxa weeyaan geemamkan ilmaha ay ciyaaraan iyo runtii qofka inuu aad ugu warhayo waa laga maarmaan waxa laga yaabaa qofka inuu hooyadii amaba aabihii inuu yiraahdo ilmaha iga aamuseeno oo iga fariisteene aan ku mashquuliyo laakiin geemamkan iyo kartoonahan iyo muxuu ahaa waxyaabahan aad arkaysaan dad baa u fikiray shirkada ayaa u fariistay dawlada ayaa u fikiray khubra ayaa u fariistay maanta diinta islaamka inaan faafino juhdiga aan gelinayno juhdi aad iyo aad ugu weyn ayaa la geliyey in caruurta ayaga ah dhan kale loo jiheeyo waxyaabaha ku sugan waxaa ka mid ilxaad ilmaha in laga dhaadhiciyo ilaahay inuusan jirin kartuunka iyo geemamka ay ka buuxaan geemamka kartuunka waxaa ku jira shirki cad oo ilmaha inay muxuu ahaa canuga markii meel khatar u gaara inuu daruurti baryo inuu gacantiisa baryo mararka qaar gacantiisa isaga u lahaa inuu baryo kadibna in baabuur uu maro markii nafta ay ka bixi rabto muxuu ahaa caradii taabto saa u taabto marka qudradii allah subxaana wa tacala baa meesha laga bixinaya marka waxyaabaha haddii fuxshiga iyo qawnaanta iyo waxyaabahan akhlaaqda baabi'ina oo ku sugan ayaga haba ka hadlin marka caruurta amaana ilaahay uu noo dhiibo subxaana wa tacaala waxyaabihii muuqmuuqday caadiga ah ma ahane waxyaabaha annaga aan u keenayno ku aamusinayna ayaa marka ka buuxa marka aad in laga warhayo waa lagama maarmaan annagoo ku camal fiina qowlahi caza wajal yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum ahliikum naara shaqada sheekh ayaa ka warramay sheekh maxamuud ayadna waa ammaano in si itqaan loo qabto nabigeena sala allahu calayhi waalihi wasalam waatuu leeyahay ina allaha yuxibu idaa camila axadukum camalan an itqinahu ilaahay saasuu jeceliy subxana wa tacala qofka marba hadduu shaqo u istaago inuu meel ku simo ood wax macno lahoo la taaban kale uu sameeyo hadalka lagu hadlaa waa ammaano qofka hadalkan ilaahay uu ku sii carabkan iyo aad ku hadlayso waa ammaano lidaalika rabbigan subxaanahu wa tacaala hadalkii laba u qaybiyey kalima xasana kalima ayiba cafwan wa kalima khabiisa daraba allahu maala ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء إيوتيك لا ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حكهض لي إن كلمة الوهض قف كمال وسن في لين إن يجرسينيس وجنة الرضوان إبرواق إيوناك إلى هنا إسقورها لكي ولا كلمي كلمة أكوها لقفكي مركز وحي جارسينيسا إنه ربي وعروضه وما ننت قيامة ربي وعريسن ولا كلمة سبحانه وتعالى النبي قال صلى الله عليه وسلم وحوش يجي والكلمة الطيبة صدقة كلمة الصوبا وصدقة وحيابها صودا وقولوا للناس حسنا مرك كلمة أثناء وأمانه سيدو كلا حق الجيران إلا دور وأمانه حق الجيران إلا إلى وأمانه ووح الله وحدي على دوره tusaale ahaan dabaq hore degan tahay qeyd dad baa ka hooseeyo sariira xitaa ay kuraasta marka jijidaysid waa inaad ilaaliso dad dhiikar qaba ayaa jira dad xanuunsan ayaa jira dad haddii mar hurdada ay ka kacaan weligood dambe aan muxuu ahaan hurdo ay ugu imaanay ilaa muxuu maalinka laga gaaro ayaa jira dadku way kala duwan yihiin marka nabigeena sala allahu calayh waali wasalam wuxuu cadaynayaa qofka jiraankiisa uusan ka badbaadaynin in shartiisa uusan ka badbaadaynin
إن قفك إسجاء أوسن مؤمن أهين أوسن مؤمن أهين أوسن مؤمن أهين ساسونا بين عدينا صلى الله عليه وسلم حديث الإمام البخاري وريه مجالس إيمانها لسكوجي ما لقوا شاكيو أو لقوها سوا أما والله وقفوا شور أنت ولا قلان شوران وأمانه كلمة داس وأمانه حتى قفك هديئة وحسكوا جيدين أو سر دين كده حيسي كدمنا أي دعوة إن لسقف إلا بصر كسيدي سبا إن إسقفان ورقنا لسقفه إن أرين تفافيسه أرين الأقل يمها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وكه الله إن ويرقفك هدو شاكيو أو ضحكو شاكو كدمنا أنتو شاكدي وضع ومديك أما بدح لن إيجو أو قف إنه مغلى إن كلا وإسكهو بي ونبينا وحده صلى الله عليه وسلم واسر وأمانه هلا دورة لازم ما ينوكو يرى باشان قري ماها سيدو كلا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم نقم باي وهد إنه سيرت دوران وحتى ويل شريرة أو خدم كالنبي أنا كمدها أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه أيا وحويا مال ما كمتودي سكوسو داهي كدبنا وحي كنت الحاجات كم غنيت وحكي النبي أيا مال إدرس ذي كدبنا وحي كنت محكو درس النبي صلى الله عليه وسلم وحكي وأرين سره آد بقى فرح دارنتي مركزها وحي كتري سيرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدناها أوجيسينها وشيء طريقة اسمك حقوقها طريق أي مران ورنتي لقنوا أي هنجري أما نذا حقوق ضدتك أي لها إن اللو عليه ومحوها حتى هنقط حقوق داس معنوي وحيا حتى أن لا تابنكر رقالي أنا نهين أي نوى أمانه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مركي ما كلف فرتي سنة كده هجرة magaalada muxuu ahaa kacbada agteeda ayuu degay oo ku furtay kadibna Uthman ibn Talha oo ragii furahay kacbada ninkii odayga uu ahaa ayaa waxa weeyana uu yeeray kacbada ayuu furay nabiga sallallahu alayhi wasallam saddex nin oo saxaabadii oo asagu ku jira ayaa la gashay albaabkii ayaa la soo xiray way soo tukadeen way soo baxeen Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu warda ayaa wuxuu leeyahay waxaan weydiiyay Bilal nabiga muxuu ahaa meeshuu ku tukaday uu sheegay kadibna نبينا صلى الله عليه وسلم كسب بحي مفسرين تمركه يرجع تواريخ ذا محوها أهل التاريخ سيد الحافظ ابن كثير إيوه سيد وكلاء ابن عساكر إيوه ابن هشام يركبا وحيليهن مفسرين إمضا وكمدة آيات قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وحيكسوا الدكتي سيد علي رضي الله تعالى عنه وارضاه أيا وحو محوها النبي أبن دقي إن لسرعية سقايدي أيها هيستين biyo waraabinta xujayda ayaga gacanta ku hayeen in xijaabadii iyo beedkii muxuu furihiisan loo raaciyay kadibna aayadan ay soo degtay ay leeyihiin wal ilmu inda Allah azza wa jalla marka inta waxaan kaga baxayaa amaanaadkii khaaska ahaa oo goonida qof walba saarna in uu guta sidii ay ahaydna loo guta waxaan u gudbayaa marka amaanaadkii iyo mas'uuliyaadkii guud ahaaneed arinta ayada maxay qeexitaankeeda muxuu yahay waa in qofka muslimiinta xil u qabana xilkaas meesha ugu sarreysa ha noqoto iyo xilka ugu hooseeya ha noqdo muslimiinta hawla isku leeyihiin waa inuu muxuu ahay ka run sheego waa inuu cadaalad sameeyo waa inuu sidaa uu qabto madaxweyne qofkii laga dhigo waa in run iyo amaano iyo cadaalad uu ku tilmaamnaado cadaalad iyo run iyo amaano uu ku tilmaamnaado ninka dhulxaaqa ah oo dawladda hoose ay shaqaalaysato oo muxuu ahaa bacyaalka iyo wasaqda iyo ururiye ummadii ayuu mas'uuliyad u hayaa waa mas'uuliyad caam u hayaa isna waa inuu ka run sheega oo waqtigi iyo shaqadii iyo habki iyo ballantii sida ugu soo baxa qeexitaanka taas weeyaan aad uma badna insha Allah ta'ala amaanada marka waxay leedahay noocyo kala duwan amaanada caamka ah waxa ugu muhiimsan uguna weyn amaanatu tabyin al-haqq wa idahihi haqq in la cadeeyo oo la carabaabo oon la qarinin waa amaano aad u weyn amaanooyinka caamka ah amaanaadka ugu weynayna ka mid tahay arinta ayadana waxaad ilaahay subxaanahu wa tacaala dhabarka ka saaray alculamaa wahum warathatu alambiyaa culimada ambiyada dhaxlay ilaa nabi nool lama arko nabi maxamed alayhi salatu wasalaam ayaa u dambeeyey nabi kale lama saaray nabigeenana sal alla slam wuxuu caddeeyey alculamaau warathatu alambiyaa culimada marka inay diinta ilaahay caddeeyaan بلنا ولا قاضيبا وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه إن دينتها عديان أين قرنين بلنا يا لو قاضي وأنا لو أمانيو
ربنا وحله سبحانه وتعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله حق مركي إنه عديان وحتى أقرب الأقربين قفك وجع لي قفك وحقها يوسن كلجة بنين أدو علمية حتى مرة كار قارت يكون جويس مرة كار وحبس كوجري مرة كار وكل مني ولا جب مرمان ما لها جهات كوسر ريان وحكمي سلطان جائرة أكتي إن حق لجوا عديه نعم إنك سوقفك مرة كار ومعذور نقنكره مرة كار وإلى لينكر مصالح معينة النبي جانا صلى الله عليه وسلم أبو ذر ويمت ورجي صحابة وقي ما بنا ووجع على كميدة مركز سير نبي الله ما شغاليشت ما ضحك دكت مركز عقير أبو ذر واحد يلي نن آد التبر درماته ضعيف آياته هوشان وأمانة ومسؤولية قفكي هوشان ربك أريته وحوي ما ننت قيامه أن حق يد جدانين وحون وحيكون قنونتا حسرة وندامة شليته إيه قوم ما يكون قنونتا أيون قنونتا إيه خساره مركا النبي صلى الله عليه وسلم حتى ننك إسقى أبو ذرها أو إنه شقالي الربي كموسى قرين مركا حق ولو كان مرا قفك علماء إنه عديه أماناتك إلهي سبحانه وتعالى وكل حساب تم ولا قرب أي كم التويان قضبك لبعض وأمانة الحكم والولاية قفك حكم لو ديبه ومدحوينه ووزير ومحوها برلمان لقى صدورتي وجفنا ومحوها جوفناتورا أما بي سي وحتى هذا أما دي سي وما إلى ذلك ضدك إيجو حكم كهايو وحويان هول أضرب أوطال ومدان مسؤولية الأمر كيوسارنت إن يكسر بحان عدالة كل دقنان ولا جم مرمان إيجا علماء أنت بدن واسكول فقيهين علماء حي عدين حقي عدين تبيين إيجا وحلا جرب التنفيذ كي علماء مركوعين حق دائما وأبدا وتجانا عديديس أمانة إلهي وكسار ويان درج أمرضها هي حكامتنا أينا لازم كوا ود إلهي كرب سبحانه وتعالى إن أي فليان لذلك حكمة وحاجرت اللي هذا علماء عدل عدالة ووح وناك بدل وحنا محوها آديات وقصي هبون إنه كل رقمة إنه كل رقمان ومرضه حلال مرض لماذا واحد وناك سويا علماء أيانا ضدك كركاسي هبون مركا مسؤولية داس وحول سويا النبي جانا صلى الله عليه وسلم وحوليه هي أدون مجرى إلهي سبحانه وتعالى وشقاليسته أو مدي مدح لوجا ديجو كدبنا جيريو ضمان أنتو جيريونا إسقونا جدانين حقي لجربي إسقو خيامي لنتا إلا إلهي وحك حرام يلا يو النبي صلى الله عليه وسلم إنه جنة قاله روايات كلا وحقيقة هيد أنا النسي حديثة إيو سمفلكيس أنا كوكوبين إلا هدي أي دعوة جنة وذو جيدا مهلا يو النبي عدينا صلى الله عليه وسلم حديث متفقة لذلك الرجل سلف كها رحمهم الله رحمة واسعة عرنت أيضا بي أدريمين مقولات إيه هذا الله سيد عمر إيه بدن أياجر وحنكو كافتهم يا عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله ننقاد ورع بدن وأهل الدين هو أخيار أيوها ما ننتي لو ديبي خلافة الإسلام كله ديبي أيا هويني ديس فاطمة بنت عبد الملك أيا أسوق شيء يسقوا محوها هذا فورك ساق عنده هايست اللي نأي كدئيس قري كجرة مركز حكوت اللي بانت هذا ما حكوا داعي مركز وحجر وحقرت اللي قصاري اللي ديبي مسؤولية ده ومدنا يا اللي ديبي كدمنا دبنا فكري وحنكون فكري قفك فقير كوحبا أنا هيسانين أو باهن وحنكون فكري قفك حنونسن أو لونسن وحنكون فكري قفك قاون ونرك هيسانين وحنكون فكري قفك أجونك أو قلبك جبن وحنكون فكري هواني ده أجونتا أو لقد انتي أو حويان عد قربت هجن أين جرين وحنكون فكري قفك لقى جرد الروضي أو الذلمي أو التبردقي وحنكون فكري قفك مسافرك وحنكون فكري قفك محوها الأفضوبتي أفضوبا أما محبوسك وحنكون فكري أضيق وين أيانكون فكري إيه قفك عيالك بدن لما مالك ير أيانكون فكري إيه وحلتوه أو كدمنا أنت أنيق عن حكومة أقطار الأرض كالجيران أيانكون فكري وحنا أجاذي إن ربي سبحانه وتعالى أنت أيضا بيقول حساب تمدون لما أنتوا ملك السوجان أنت أني المسؤول كاي يقول حساب تمدون وحن كلون أجاذي لوير إنه ويا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كدبنا وحن يقين صدي أما وحن كبقي إن أنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم سؤال هذه ويدين دونه الدفاع ومدو الدفاع دونه أنا نهب يراته إسكا إلين كريم مركزان أو هنتنا أركيشت إيه هوش أنا هيجتا أي واحد جتا
raggii marka xilka saayay ummadda xilka ka saysa noocaas ay ahaan jireen maantana waad aragteenoo qofka xilka wuxuu raadinaaba inuu ummaddan booba inuu ummaddan dulmiyo inuu ummaddan ka arguto inuu ummaddan muxuu ahay qaar gumaysto inuu ummaddan muxuu ahay qaar tarxilo وهكذا waxa loo raadina waad arkaysan marka runtii shataana baynana wa bayna haula annaga iyo ummadaas ummadaadu u kala fog ayaan nahay marka amaanada dhanka wilaayaadka caamka ama madaxnimada baab sahlan ma ahan ardayga ama ha noqdo muxuu ahaa quraan mid barto ama mid diin kala barto ama ha noqdo mid muxuu ahaa iskuul barto ama muxuu ahaa mid kastaba ha noqdo waa amaana dhabarka ka saaran macalinka asay u taal hawsha iyada isaga ma ka fursada ama waxa ku dhaca inuu wax baro inuu si daacad wax ku bara inuu waqti badan geliyo inuu qalbigiisa dhowra inuu muxuu ahaa xikamti iyo cilmigi uu yaryarayo oo intii aad qaadan kara uu siiyo wama ila dalika qofka xanuunsan amaano wuxuu ku yahay dhakhtarku u tagi inuu isdhaafiyo amaba uu kaniinkii muxuu ahaa u yeelay uu ku kharijiyo ama uu danka gelin amaba uu sumeeyaba hadduu rabo xitaa ayadna waa amaano u taalo qofka la wakiishay isna waa amaano qof wakiisho muxuu ahaa amaanadiisa dhabar ka saaran labada ishaysato waxay amaano ku tahay cid kala saaraysa ama qaadi ha noqdo ama jiha kale oo taxkiim ha noqoto ayna amaana dush ka saaran weeyaan guriyaha dhisan oo hadda aan degannahay allah nagu salaam deelo ama aan ku cibaadaysano iyo bundooyinka iyo jidadka amaana dush ka saaran weeyaan cidda loo xil saaray waxaad arkaysaa maanta jid baa la dhisi sanad ama 8 bilood kadib uu fuqfuqsan yahay waxba lama saarin lacagtiin la cun waxba lama qaban qof baa guri loo dhiibi waxa leeyahay muxuu ahaa inta sentimitir biraah gali markaas wuxuu gelinayaa nuskeedii waa amaana qiyaamo la weydiinaya arrin culus waa amaanad waliba khaasatan markay waxay sii weynaanaysaa markay qof tahay markay ummadii waxa isku leedahay way sii kala weynaanayaan sidoo kale waxa amaana ah sancada iyo xirfada iyo warshadaha iyo ummadda ka shaqeeya waa amaana ayna u taalo ummadii inay muxuu ahay ka hormariyaan dhanka asaga dadaalaan wanaajiyaan wixii laga filay ay sameeyaan xitaa geedaynta in magaalada la qurxiyo oo la wanaajiyo waa amaano dusha ka saaran cidi muxuu la saaray inay sida ugu taa loo baahan yahay magaalada nadaafadeedii annaga kulay markii ra'iisli aan nahay nadaafad marka la sheego qof walba waxa weeyaan sibaad muxuu ahay u xanuunsanaya magaaladan nicmadan iyo khayrkan iyo wanaagan ilaahay uu subhanahu wa ta'ala iyo sida u taalo waliba canshuur la qaado dad la shaqaalay ummad ay ka shaqeeyaan dawladda hoose ay joogta kambaniyaal mararka qaar la siiyo wama ila dalika annaga lafteeni aan leenahay ururo iyo waxa weeyaan NGO-yaal iyo muxuu ahaa isxil qaamay oo ummadii aan u adeegayna u taagan boqolaal hadii kumanaan ay gaareen maca dalika xaaladdeena aad aragtaan marka ragga ayaga oo loo xil saaray hawsha ayagana waa muxuu ahaa amaano u taalo in alla intii muxuu ahaa ku xanuunsato daacuun kaga dilaacay intii muxuu ahaa iyagoo ka cararayaan wasaqdaas baabuur ku dhacay intii dhibaato ay soo gaartay intii ganacsigooda ku halaabay waa amaano u taalo hawl sahlan runtii ma ahan waxa u dambayso qodobada ayada qofka munaasabka abooskiisa la dhigo qof aanan tacliin lahayn oonan dhakhtar ahayn in la yiraahdo dhakhtar noqo qof aanan ahayn engineer in la yiraahdo engineerida ee u weynto engineer baat booskaas saas in la yeelo ayadna waa amaano waliba qiyaamo liis weydiin doona khatarna ah lidaalika waxa weeyaan sayd cumar radiyallahu ta'ala anhu ardaa arintaas aad buu ugu dadaali jiray maalmaha kamid ah ayaa wuxuu la kulmay nin gobnatoro ugu ahaa magaalada Makka xilliga aad khaliifatul muslimiin ahaa oo la dhihi jiray Naafi' ibn Abdul Harith wuxuu kula kulmay magaalo la yiraahdo ama tuulo la yiraahdo Cusfaan oo hadaba ku taal Makka meel afkeeda ka yar sokayso wax yar kadibna wuxuu yiri war magaalada Makka yaad ugu soo tagtay oo wakiil ugu dhigtay markaas ibn Abza markaas ibn Abza ku ahaa markaas yiri waa mid anaga aan xureynay oo adoon ahaan jiray markaas yiri man adoon ayaad magaaladii Makka aad ugu soo tagtay muxuu leeyahay inta badan dadka adoomaha la leeyahay waqtigoodii ma haystaan tacliin ma gali karaan inta badan khibrad badan ma heli karaan waa dad muxuu ahaa marna inta loo diro wax badan aan la soconin ummadan waxay u baahan tahay qof khibrad leh qof aqoon leh qof muxuu ahaa mas'uuliyadda xambaari kara qof xataa kalsooni badan leh dadka adoomaha mararka qaar waxa laga xataa kalsoonida inay ka lunto marka wuxuu isiri amu ninkan nin munaasib uusan ahayn markaas wuxuu yiri maya ninkan nin sahlan ma ahan waa nin quraanka Allah xifdi subhanahu wa ta'ala oo yaqaano waa nin faraaisha cid ku haysata aan jirin waliba inta waxa dheeray waa nin qaadiya oo qadaaga sidiisa buusi takhasuskiisa markaas sidii intuu kaga aamusa wuxuu yiri
nabigana ka maqlay sala allahu calayhi waalihi wasalam isagoo lah ilaahay subxaana wa tacala kitaabkan qur-aanka dadna uu ku salamariyaa dadna dhulka ayuu ku dhigaa ayaan muxuu ka maqlay ayuu yidhi dowladihii ruushka uu ka tirsanaan jiray oo midowga sovieti mid ka mid ah ayaa waxaa weeyaan nin madax ka ahaan jiray intayna burburin ayaamihii burburka u socday nin ka mid ah dabcan burburkan raggaa ka shaqeeyo rag badan oo xitaa meelihii u sarreey gaaray ayaa ka qayb qaatay marka nin ka mid ah ayaa muxuu maxkamad la keenay kadibna waxaa la yidhi niyo adiga dembi aad gashay maanta oon kugu maxkamadayno oo jurmi ahoo muxuu aad gacmaada ku geysatay oo dhib uu ku imaaday annaga ma hayno laakiin waxaad noqotay nin ayaad shaqo geysay ood shaqaalaysiisay ninka isaga ahaana shaqadii ayuu dayacay sida awgeed ninka asaga ah meesha aad geysay iyo dhibaatada uu keenay dowladda dhibaato ugu timid ayaa lagu maxkamadayna oo maxkamad cusub lagu saaraya kadibna ninka waa la baaray ninkii muxuu la haystay oo muxuu maxkamadda la saaray ayaa la baaray waxaa la ogaaday inuu yahay nin jaajuus ah nin jaasuus inuu ahaa oo wuxuu samaynayaa dhakhtarkii wuxuu geynayaa jidad ka shaqeeyu leeyahay kii jidad ka shaqeeyna wuxuu geynayaa meesha dhakhtarku geynayaa kii macallinkaaga wuxuu geynayaa askarnimo u dirayaa marka dad marka haba yaraatay ummad kuma yara dad aqoon kuma yara ummadii laakiin wuxuu geynayaa shaqaalihii ayuu meelo aan munaasabeen kala geynayaa sida ayaa dowladda lagu muxuu soo dhaxgalay kadibna ay ku burburtay ku baabaaday alcumuum waxaan kala jeedaa marka in xitaa qofka mas'uulka ah qofka uu shaqaalayna qofka uu meel geyna in uu noqdo qof hawsha ayada u qalma ku haboon waa ammaano hadduu dayaco qof aanan ku haboonin ama qaraabinimaha ku geeyo ama laalasha ku qaato ama saaxiibnimaha ku geeyo amaba gobolkayga ayuu ka yimid ku geeyo wuxuu noqonayaa qof amaanada dayac ayuu noqonayaa waxaan ku khatimayaa xadiidka nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam abu hurayra uu wariyey إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها يا رسول الله قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة مركب حديث كان كوب الله وناي أيام ختمينا جزاكم الله خير هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على عبد الرسول المصطفى جزاكم الله خير الجزاء علماءنا إلهي سبحانه وتعالى خير فربنا نسيه كلمات كاس قيمة بدن أنا إلهي سبحانه وتعالى نقول أنفعه وقتك عريري واي سؤال فربنا بالله ساقري كان لبس سؤال وكلمة ويدين دون علماء سؤال شو هو سبحانه وتعالى لمبا ساقري يا مقف هدي أن امتحانك هاي سكول كأن قشة أو قش أن كوباسو سياسنا أن جامعة كوجلو jaamacaddii markaan garan ayadana aan qish ku baaso saasna aan ku graduate gareeyo jaamacaddii aan uga qalin jabiyo waxaan hadhow shaqaystay xalaal miya arrintaas ammaano ma geli kartaa بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا من بعد ninkan wuxuu yiri qish baan ku baasay mid kalena ku dar suuq madow baan ka soo gatayna ku dar shahaadooyinka laftooda waa la gataa sooma waxaa kaloo nagu soo noqnoqda su'aalaha sharciyan magacayga in haddaan ku shaqeeyo oon shaqo ku helo ama magaca aabbahay ma wato ama dokumentigan dhanba malihi qof iyeg baa iska lahoon ku shaqeeyo waxaan rabaa in labo arrimood way kala duwan yihiin in waxaad samaysay uu dembi yahay khaldan dabcan beentu asal ahaan soo xaaraan ma khiyaanaduna xaaraan weeye waxaadan aqoon inaad tidhahda waan aqaan dadkana aad isaga dhigtay inaad taqaanood aqoon leedahay mujtamacaadkuna meel ma gaaraan haddii macallinku waxbarashadii musuq maasuqo oo kii shaqada qabanayay shaqadii musuq maasuqo oo wasiirku xafiiska musuq maasuqo oo askarigu shaqadiisii iyo nabadgelyadii musuq maasuqo oo dhakhtarkii iyo ninkii farmashigu dawadii ay musuq maasuqaan oo kuwii beeraha ka shaqaynaya wax soo saarka raashinkii musuq maasuqaan ummadda maxaa u soo haraya
dee waxba ma soo haraya nin wal meeshuu joogo hadduu musuq maasuqiyo meeshuu ka soo gaaro laakiin waxaa kale laba ah qofku waxa uu sameeyey inuu been yahay oo uu dembaabay masalo gaara wey shaqada aad qabatay inaad taqaan oo sidii la rabay aad u qabatayna arrin kale wey shaqada qabashadeedu aqoonta lagu qabtaay mar baynan soo barasho keli ahayne qofku khibradu u leeyahay ay keentaa qof khibradda oo ka shaqo fiican qof soo akhristay oo badanna waad aragteen markii shaqo la qabanayo wixii laga shaqaystay xalaal ma yahay ee mushaar la qaatay waxay ku xiran tahay shaqadan ma taqaan oo ma u qabatay sidii lagaa rabay ama shahaado wado ama ha wadanin ama qish ku baas ama ha ku baasin dad badan oo shahaadooyinka la tegay meel waxay soo barteen iyo waxay ka shaqeeyaan isku mid maahaba qaar baa shahaadadan keligeed aan laguba qaadan ee koosas diblooma ay qaateen bay shaqada ku helaan marka waxaan rabaa inaan idhahdaa shaqadu waxay u baahan tahay inaad shaqada garanayso sidii la rabay in aad u qabatay labadaa haddii la helo waajibkaagiina waad gudatay wixii waajibkaagii shaqeed gudatay aad ku heshayna xalaal wey waxa kalena been wey haddii aadan shaqadan aqoon ama haddaad taqiinay sidii nadiifteedaadan u qaban dee waxaad ku qaadata xaaraan weeye wabillahi towfiiq jazaaka allahu khayr aljaza sheekh su-aasha u dambeysa waxay leedahay hadalka ammaano ma galaa tusaalaha qof baa kuwa imaani war buu kuu sheegi markaas wuxuu ku dhihi afkeena waa isku ammaano alxamdu lilah inta la sii wadwadaa waqti u dhacayaa bay dhahaan wadaadadii su-aashay ka cararayaan waabaan south africa muctamar tagnay aniga iyo sheekh khayralaas iyo sheekh cabdi cumar iyo sheekh cali wajiis iyo rag kaloo culimaan ahayn arrimo soomaaliya ka taagnaayoo xasaasi ahaa oo nimanka dhallinyarada iyo dagaaladaas iyo waxyaaba ku saabsanaa iyo bay su-aaluhu u badnaayeenoo waagaa waxbaa karkarayay hoosta inta afka la isa saaray baa waxaa la yidhi ninkii su-aalaha qaybinaya wixii waxaa ku saabsan oo dhan wadaadka shiblo ku wareeji bay dhaheen markaasa waxaan idhi waa yahaye waxaan sheegay wadaadada ogaada way ila qabaan haddaynan ka hadlin intaan iraahdo waa inaan isku waafaqsannahay haddaynan dhihin maya taa kuma waafaqsanin waxayna dhihin marka dadka waxaan rabaa waa inaan u sheego waxaan isku waafaqsannahay maan sheegi doonaa wixii ka duwan iyagaa sheegi doona raggana hadda waxaan rabaa inaan dhaho wixii aydaan iga qabanin waa igu waafaqsantihin aadda waa ila qaadaysaan masalada ereygu ammaano ma gala haa hadalladii bay ka mid ahayd xadiid culimmada qaarkood xasan ka dhigeenna wuxuu ahaa inama almajaalisu bilamaana majaalista fadhiga la ysugu yimaadee waxa la ysku weydiiyaay waa isu aamin dadku waa isu aamin waxay yidhahdaan waxaa lagu gartaa inuu hadalku ammaano yahay dhowr arrimood baa lagu gartaa in sidii hadda la sheegay baa lagu yidhi qari inkastoo wixii qari la yidhaahdaa ugu fidoog adna ha sheegin boodhika dhinaciisa intuu sheego nin baa laga sheegay nin buu yidhi walaal waxbaan kuu sheegi ha sheegin markaasuu walaalow ha ii sheegin haddaba maxaa dhacay buu yidhi waxa ku gubayeed la harsan la-adahay dabka ha igu shidin buu yidhi nin dhanbaa sirtiisii iyo baahidiisii iyo ceebtiisii buu qarsan la'ya markaasuu wuxuu rabaa qof kale inuu u qariyo waxa in la qarsadana xadiidkii wuxuu istaciinuu calaa injaaxi alxawaa'iji bilkitmaan dantiin inaad gaartaan inaad qarsataan kaalmaysta marka in lagu caddeeyo waa la gartay waa kow waxay culimmadu yidhahdaan qofku markuu wax kuu sheegaya hadduu hareeraha fiiriyo waxbuu rabaa inuu kuu sheego hareeruhu iska fiiriyey waxay astaan u tahay sir weeye inaad ka sheegta lama ogola waxaa saddexaad bay yidhaahdeen hadduu dadka intuu gacanta ku qabta kaa dhex saaro oo meel gaara kula tago iyadana waa ammaano
inaad dayacdaan loo ogolayn. intaa waxaa dheer haddii waxani wax fagaaro laga sheego uusan ahayn, qofkani waxa uu kuu sheegtay waa wax ceeba ama dhib keeni kara hadduu bannaan u baxo fagaaro laga sheego. wax fagaaro laga sheega ma aha buu gaar kugu sheegtay, laakiin waxaan sir ahayn wixii masaajka lagala istaagay. hadduu nin masaajka wax kala istaaga ama fagaaro dadku wada fadhiyaan ka sheego, taa dee sir ma aha. laakiin wixii ceeba fidinteed iyo xumaa fidintii, xumaa fidin aan la ogolayn baa laga yaabaa xaaraan noqotee ammaano inay tahay ma aha. saa darteed ereygu ammaanada waa galaa. wixii dadku gaar uga wada hadlaanna markii la leeyahay reer guri wada galay oo gogoshii bannaanka lagaga sheekayay wixii la isyiri, ninku hadduu xaaskiisii iyo ama gabadhu ninkeeda dhib ka haysto oo uu tala ku weydiiyo dhibkii haystay intuu ku arko uu sheegto uu tala ku weydiiyo, inaad bannaanka geysadiiso ammaano darro ma. wabilaahi towfiiq. جزاكم الله خير الجزاء علماء إله سبحانه وتعالى أجر حسنات فرضانا كسية. برامج كان عاو إن شاء الله تعالى أنت سينكسو كوبينا وحندوننا إن شاء الله تعالى إنا إعلامنا محاضرة يا كدع دون تهدو إلى هدمه هولك الفجري 7 ستريت. محاضرة الصحة سوقا مقابسي وضد الليبانتا يبدبادر دان يراد الإرادو وكترسن منظمة الإحسان للرعاية الاجتماعية. هولك الفجر كدع دونتا maalinta xadda soo socoto 26 bishan saacadu markay ay tahay 8 aroornimo markay tahay ama 2 saac subaxnimo ay ka dhici doonto insha Allah taala. waxa soo jeedin doona fadiilad Sheekh Maxamed Ibrahim Kenyawi. ciwaankeedana wuxuu noqon doonaa wakunu cibaadallahi ikhwanan. muxaadarada insha Allah taala laga faa'iideysto dhamaan. barakallahu fiikum. wixii anshitaa oo munadamada al-ihsan ay qabanayso dhamaan waxa kala socon kartaan page-ka ihsan ay ku leedahay Facebook إحسان ميديا. وحي هراء بحي إلى الضوبان وحال الجليا channel يوتيوب كيكولاد إحسان ميديا يدنا هل كاس عنك وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.